السلام عليكم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أصحابتي دقاليقة waxaan jeclaystay inaan la wadaago laba kelmadood. ruuxa ibni aadamka markuu ku balamiyo wuu baajiyaa, markuu ku sheekeynayana wuxuu kaaga sheekeeyaa sheeko been, markaad aamintina wuu ku khiyaamaa. ibni aadamka badankeena waan jecelnahay, waana ka samaysannahay markii nala ballamiyo inaan ballanta baajino, markaan sheekeynayna inaan ka sheekeyno sheeko beena. waan u badannahay badankeena, markii nala aaminana inaan khiyaamo sameyno waa u badan tahay. maxaa yeelay walaalayaal, meel islama gelayso laba ruuxoo daacada. ruux hadduu dacan yahay ruux ayaa laqdabo wada, ruux hadduu runlow yahay ruux ayaa beenlow ah, ruux haddii la aamino ruux ayaa khiyaano i qas wado. marka ibni aadamka ma ka dhammaado dhib, laakiin ruuxa biniaadamka maxaa laga rabaa inuu ilaahay subxaana watacaala ka cabsado. waxaa rabaa inuu ilaahay subxaana watacaalaha uu ogaado inuu iqaabayo, ka caroonayo, qalad uusan raalli uga ahayn. waa inuu iska ilaaliyaa qaladka. laakiin haddana qaladka iska ilaalin, saddex arrin haddana iska ilaalin, wallaahi waxay leedahay dhibaato weyn ayay leedahay. saddexdaas arrinoo ah inaad qof intaa ballamisid aad baajisid ballanta uga baxdid, inaad qof u sheekaysid sheekadaasna sheeko beena, sheeko malaayacniya, intaba waa laga fiican yahay. ruuxa biniaadamka intuu ku aamino haddana aqiyaato, taasina waa mid xanuun badan runtii. qofka biniaadamkana qalbigiisa dhaawici karto. qofka biniaadamkana looga baahan yahay inuu ilaahi subxaana watacaala uu ka cabsado oo walaalkiisa uu ka ilaaliyo inuu dhaawaco, inuu been u sheego, inuu khiyaamo. waa shay qaali inuu qofka iska ilaaliyo. ballantuna waa muhiim, badankeena ballanta ma ku dadaalno. ruuxa meel ku ballanteen maanta inaad isku raacdeen ama wax samaysiin waad uga baxaysaa. number 1 marka walaalayaal, beenta wax faa'iido ay leedahay mal. beenta waxaa loo maleeyaa in laga helayo waxyaabaha faa'iido ama laga helayo waxyaabo guul. runtii arrinku sidaa mooda ma ahee. ballanta beenta adiga ayay wax kuu dhibaysaa. ballanta beenta, aaminaada oo khiyaanada ka dambeysana waa mid adiga khasaare kuu geysanaysee, ma ahan mid ruuxa aad ku samaysay dhibaato u keenayso. beenta intaad ka sheekeynaysid ma ogtahay inay malaa'ig garbahaaga saaranta oo lagaa qorayo oo xisaab kugu socoto? miyaad isweydiisad midaas? runtii inaad ilaahay subxaana watacaala ka xabsatid, ilaahay subxaana watacaala inta ku xisaabin inaad isxisaabisid wax ka wanaagsan mala walaalayaal. ilaahay subxaana watacaala xaq hana tusiyo. waan jecelnahay beenta iyo luqaafyada iyo lugooyada iyo kalsooni darrada inaan dhexdeena ka abuurno. waa mid oo laga fiican yahay runtii walaalayaal. ruuxa bini'aadanka waa inuu isweydiiyaa maxaa dana ugu jirto. ruuxa waad ballamisay, ballantina waad baajisay, maxaa dana kugu jirto? lugooyadaas ma isweydiinay? waa su-aal. ruuxa intuu meel la fadhiisataa maanta o dhan u sheekeynaysaa, sheekadaasna waa sheeko beena oo waxba ka jirin. ma isweydiisa maxaad ka faa'iidaysaa sheekadaa beenta aada u sheegaysa? ma isweydiisay intaad sheekadaas beenta ka sheekeynaysid waqti ayaa kugu socda, waqtigaaga ma xisaabiso meeshaad ku bixinaysid? waa su-aal. haddii oo ruuxa bini'aadamka ku aaminay oo aad khiyaantay, khiyaanada ma og tahay khasaarada kaaga imaan karo? mise waxaad u malaysay khiyaanada aad qofka khiyaanaysa inaad ku guuleysanaysid? arrinku sidaa mooda ma ahee.
ruuxa aad qiyaantay guuldarro ayaa kaaga imaanayso. maxaa yeelay ilaahi subxaana watacaalaha ma daalacanayo waxa aan samaynayno ee qalubtan ayaa u daalacanaya. marka walaalayaal waa laga fiican yahay inaan sameyno nalooga barto aaminaad darro, nalooga barto been, nalooga barto ballan baaji in nalooga barto waa wax laga fiican yahay. runtii dad badan waxaa arka leeyahay qofkaas ahaa beenlow waaye, laba kalaam run ma sheego, warkiis maa dhulka ka qaaday. heerkaas inaan isgaarsiino maahan oo sharafteena dhulka iskaga ridno oo nala ku tilmaamo beenley ama beenlow. waa wax laga fiican yahay runtii. ruux waxaa arkaysaa dhahayo qofkaas aniga ma aaminaayo. maxaa kalifa in nala aamini waayo? waa inaan iska ilaalinaa qiyaamada. ruuxa hadduuna aaminay inaan qiyaano ma ahan. lainoo wuxuu yidhi didiino waa lagu tashanaaye. markaasuu yidhi meeshii laygu tashanaayo ilaahay ma joogo. didiinka baruur ahaa. markaas ilaahay qolof saaray. marka waa inaan ogaanaa meesha anaga khiyaanada ku samaynayno in ilaahay joogo, meeshaa ballanta uga baxayna inuu ilaahay joogo qof kale walaalkeena, meeshaan sheekada beenta ka sheekeynayna waa inaan naftan u sheegnaa inuu ilaahay joogo. ilaahay subxaana watacaala ruuxa bini-aadanka ad isku xirnayn, ilaahay iska cabsanaynin, qalad iyo sax waa iskugu mid, micno darro iyo micnona waa iskugu mid, wax micno lahayn iyo wax micno laba waa iskugu mid. maxaa yeele qofka bini-aadanka waa inuu iimaankiisa buuxaa, waa inuu ilaahay subxaana watacaala ka cabsanayo, ilaahiis ku xiran yahay. wallaahi waa shay qaali qofka inuu ilaahay iska cabsanayo walaalayaal. waa inaan ilaahayna ka xishoonaa, waa inaan ilaahayna ka cabsanaa, waa inaan wax kastoo qalad aan samaynayna ilaahay dartiisa ku dhaafnaa, wax kastoo qalad aan samaynayna waa inaan ilaahay dartiisa ku xishoonaa, waa inaan ilaahay dartiisa khayrka ku samaynaa, shartana uga tagnaa, waa inaan ilaahay dartiisa xumaanta uga tagnaa, khayrka ku dadaalnaa, waa inaan ilaahay dartiisa aan u samaynaa waxyaabaha wanaagsan oo samafalka ah. miyay nala tahay ilaahay subxaana watacaala haddaan isku xirno wax kasta uu raalli kaya aan samayno, wax kastoo ilaahay caro gelinayana aan iska dhaafno, miyay nala tahay inaan khasaareyno? may waa guulaysanaynaa. ruuxa bini-aadankana markuu ilaahay isku xiran yahay oo wax kastoo ilaahay raalli ka yaha samaynayo, ilaahay subxaana watacaala wuu la jira asagana. ilaahay ma daayacaayo addoonka wanaagsan, addoonka daacadda, addoonka ilaahaysa ku xiran, ilaahay marnaba ma daayacaayo. laakiin waxaa doonaa soo qasayna, waxaa doonaa samaynaynaa, dadka waa lu goynaynaa, beenaa u sheegaynaa, waa ballaminaynaa, waa uga baxaynaa, meelantaa u fadhiisanaa sheeko beena maanta uga sheekaysana, qofkaan uguuna aamina sheekada runa u maleeyaa. runtii taasi waa mid noo ah guul darro. ilaahay subxaana watacaalana uu nooga caroonayo. ilaahay maxaa farxad geli kara? ilaahay muxuu nagu jeclaa karaa? wax kastoo asagu raalli ka yahay inaan sameyno, wax kastoo ilaahay raalli ka yahayn aan iskaga tagno. wax waliboo dhaco, wax waliboo aan sameyno, wax nooga qaalisan ma jiro koonka. inaa ilaahay subxaana watacaalaana abuurtay inaan raalli gelino oo raalli naga noqdo. walaalayaal guusha dhiman aan raadinayna maxay tahay? markuu ilaahay subxaana watacaala raalli naga noqdo oo ilaahay subxaana watacaala hana doorto, na jeclaado, markastana maceena noqdo. allahu akbar. badankeena waa ka indha xiranaa arrinkaas. adduunka macaankiisa ayaa noo muuqda. adduunku waa malab, laakiin sidii xarag dabada jirka cunaya ayay u socdaa. adduunku wuu iskurayaa. annagas waxaa u malaynaa adduunku inuu ballaaran yahay, inuu dheer yahay, inuu sii soconayo. siima socdee waa hoos u socdaa. ilaahay subxana watacaala tawfiiqda hana waafajiyo walaalayaal. nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi calaamadaha munaafiqa waa 3. hadduu ballamo wuu baajiyaa, hadduu sheekaynayana wuu been sheegaa, haddii la aaminane wuu qiyaamaa. subxaana allah. walaalayaalow ilaahay subxaana watacaalaha inaan ka cabsano,
wax ka wanaagsan ma jiraan. subxaan allah. ilaahay xaqa hana tusiyo, ilaahay raalli hanaga noqdo, ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu qulubteena ka ilaaliyo xiqdi iyo xumaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qulubteena ka ilaaliyo inaan qof bini aadan aan ballan uga baxno ama been ugu sheekayno ama intuuna aamino aan qayaano. wallaahi wax ka xun mala aaminaad, qofka ku aamino wax ka xun malaha. ilaahay xaqaana tusiyo walaalayaal, mar kastaba aan iskula dadaarano waxaa wanaagsan, wax welina aan ka fiirino dhanka wanaagsan. nafteenna shaydaan ayaa wehliyo, shaydaankana haddaan markasta aan iska dhihin yacyac suu raba ayuu naga yeelanayaa. ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo, ilaahay subxaana watacaala hana hanuuniyo. hanuunka asaga iska leh, wax weliba asaga ayaa maamulo, asaga ayayna gacantiis ku jiraan. rabbigii raxmadda badnaa tawfiiqda hana waafajiyo walaalayaal. ilaahay hanaga dhigo ummad uu raalli ka yahay, ummad uu doortay, ummad maro waddadii nebiyada iyo muuminiinta iyo ambiyada. ilaahay hanaga dhigo kuwa adduunka iskula joogo wanaag iyo jacayl, ilaahay dartiisa isku jecel iyo khayrka isku jecel. maalinta aakhirana ilaahay subxaana watacaala hortiisa khayrku wada kulmo. ilaahay hanaga dhigo walaalayaal, hanuunka ilaahay iska leh, ilaahay hana soo hanuuniyo. ilaahay subxaana watacaala nama fidneeya adduunka fidnadiisa, ilaahay hanaga badbaaso iyo shartiisa. ilaahay subxaana watacaalaha wadankeena nabad ha nooga dhigo, soomaaliya nabad allaha ka dhigo. ha ila yaabinana walaalayaal, markastoo aan hadlayo waxaan soo geliyaa nabadda soomaaliya. waan jecelahay guusha soomaaliya, waan ka masayraa wadamada kale oo nabadda haysto, farxadda ku noolo, dowlad rasmi haysto. anagana insha allah waa rajaynaynaa ayagana ilaahay u siyaaso wadan kastoo islaan ah oo nabad iyo barwaaqo ku nool, allah u siyaaso. intaan haysanin oo annaga nala mid ah, inta naga liidatay intan oo nala midana ilaahay subxaana watacaala nabad ha siiyo, nabad dhammaystiran. haddaan nabad jirin laysma wacawa baristeen, lama arkeen ruux dhaho sidee tahay, ama intay ruux la fariisto la sheekaysto lama arkeen. waxa la iskula salaamay, la iskula socdo, la iskula kulmay, la isku arkayo waa nabadda. ilaahay wadankeena nabad ha nooga dhigo walaalayaal. meel kastoo dunida ka joogtiin, qalubtiina ka dhiga saafi, qalubtiina ka dhiga qalub oo qurux badan, qalub oo raxmadda ilaahay iyo naxariista ilaahay ku degan. ilaahay hanaga dhigo, ilaahaan ka rajaynaynaa walaalayaal. qalbiyada wanaajiya, ilaahay waxaa samaynaysiin ma daalacdee, qalbiyada ayuu daalacdaa. qalbiyada wanaajiya, haddii laydinkan xanaajiyo ama la idin xumeeyo, isku daya inaad iscelisaan, isku daya inaad carada iska baabi'isaan. haddaad carootaan inaad soo noqotiin, isku daya xoodi bilaysatiin, la iska saaro cuqdad iyo xiqdi iyo xumaan. horumar waxaan ku gaari karnaa, wadankeena wuxuu ku dhismi karaa, magaca soomaaliya wuxuu isku raaci karaa, ku midoobi karaa inay qalubta saafi layskaga dhigo. qalub wanaagsan ayaa horumar iyo guul dhexdooda ka dhalataa. walaalayaal, aan midoobno, aan noqono kuwa midoobay, qalubtana aan wanaajino. qalubta hadday wanaagsan tahay, annaga dhana waa wanaagsanaanaynaa, waana hagaagi doonaa insha allah. eebba wuxuu jecel yahay walaalayaal kuwa ku dagaalamo jidkiisa, jihaadka iyagoo saf ah, oo aad moodo dhismo laysku dejiyey midnimadooda. midnimada walaalayaal waa wax wanaagsan, inaan midoobno, inaan isgarab qabanno, inaan markaste dad isjecel, dad ilaahay dartiisa isku jecel, dad isku dada, dad isku dhiiga, dad isku diina, dad isku dhaqan ayaynu nahay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu naga noqdo raalli, una waafajiyo tawfiiqda. ilaahay subxaana watacaala ruuxuu hanuunin ma hanuuni karno, ruuxuu uu hanuun la jeclaadana ma halay karno. laakiin maxaana hanuun iyo horumar ku gaari karnaa inaan mar kaste ilaahay barino, ilaahay subxaana watacaala u sheegan amuuraheena, arrimaheena, wax kaste. ilaahay nabad hana siiyo, caafimaad hana siiyo. meel kastoo dunida ka joogno, ruux waliba meeshuu jooga allaha ku xafido. wabilaahi tawfiiq.
waxaan haleelana waxay ahaatay ilaahay xaggiisa ka ahaatay, waxaan qaldana nafteeda iyo shaydaanay ahaatay. ilaahay hana cafiyo meel kastoo dunida ka joogno, tawfiiqdana hana waafajiyo, tawxiidka iyo toobadana hanagu dugo.